waxyaalaha inoo hagaagay sanadkan dhanka communicationka ama warfaafinta oo kale isbedel balaaran ayaa ka jira oo runtii hadday noqoto xilliga abaaraha oo kale iyo hadday noqotaba in si cilmiyeysan deegaanka waxyaalaha uu qabanayo lala wadaago bulshada iyo dunidaba isbedel balaaran oo bogaadin mudan ayaa ka muuqda communicationkaasina waa wax inta badan communicationka saxda iyo communicationka guushiisu waxay ku xiran tahay shaqada la qabanayo haddii shaqada la qabanayo hagaagto communicationku lagu hagaaga shaqa aan la qaban communication laguma hagaajin karo marka waxay ka maqnaad kacaysaa shaqooyinkii la qabtay dhanka nabadgelyada iyo dhanka abaaraha iyo shaqooyinka dhanka mashaariicda lafteeda laga qabtay laakiin dadaal balaaran oo xagga ka soo kordhay inuu jireen inaan carabka ku dhufto dhanka warbixinta qaabka loo soo diyaariyey arrimo tilmaamo laga bixiyaa jira xildhibaan Bashiir Shaafi qaar uu ka hadlay kuwa kaleba waan qaadanaynaa waa kuwa sax arrimahaas oo kale ama xagga luqadda ay ku qoran yihiin ama taariikhda ha noqoto ama dhalilaha kale ee qaabka reportigu u yaallo structure-kiisu u yaalla waa waxyaalo fiican oo in la qaato u baahan insha Allah kuwa dambe inay ka muuqato isbedelkaasi waan rajaynaynaa dhinaca contentiga intaana gelin qaabka structure-ka laftigiisa reportiga oo isaguna miisaaniyadda qaabkay u taallo iyo qaabka warbixinta loo soo jeedinayo in la iswaafajiyo format ahaan iyaduna waa wax fiican oo soo kordhay oo kala faa'iidaysu way golahani su'aaloon maaha shaqadiisu inputna inuu siiyo way executive-ka sidaa daraaddeed inaan taa qaadano oo anaguna aan ku darsano wax naga maqnaa maadaamay tahay aan kordhino baa loo baahan yahay dhanka nuxurka ama contentiga xogaha qaarkood qaabkay u yaalaana hadday jiraan meelo matalanba reportka si ay ugu qoran yihiin iyo sida muxuu ahay groundiga ka jira ama dhulka ka jira ay kala duwan yihiin haddii waxyaala isdiidan oo meesha dhexdeeda ku jiraan qaabka presentationka loo soo samaynayo in la waafajiyo waan qaadanaynaa iyadana dhalaha noocaasa in ayna ka muuqan warbixintan cudurdaar gaara oo maadaama xilligii ay imanaysay ay ahayd xil ay ku beegantay weerarkii al-shabaab oo kale maalmihii u dambeysay la islahaa in si hufan loo wada fadhiisto aniga lafteeda warbixintan soo jeedinay waan aaminsanahay sidii si ka wanaagsan in loo soo dhigi karo haddii waqti fiican la geliyo marka dadaal yaa la gelin doonaa laakiin dadaal fiicanna wuu ka muuqdaa warbixinta oo xildhibaanada xilli hore lala wadaagay waqti baa la siiyey bayaanaha noqdaan mustaqbalkana intaa la sii xoojiyo oo hay'ad sharci dejinta maadaamay tahay inay iyadu ay ahmiyaddeeda la siiyo oo wax walba oo la baasgaraynayo waqti fiican ay u hesho ku eegto I think in dadaal laga sameeyay inaad qiraysaan taa in la sii xoojiyo intaana su'aalihii soo gelin waxaa muhiim ah iyaduna contextiga aan ku shaqaynayno iyo waxyaalaha dawladdan laga rabo inaan iyadana isla meel dhigno ama key deliverables waxa la yiraahdaa deliverieska u waaweyn ee dawladda laga rabo dawladdu way sanadba sanad binoo dhiibaya marka sanadka aad hadda joogteed ka hadlayso sanadkii hore kama badna marka aad arrin taxliilinayso way isku xidhnaanayaan nidaam burburay I think kolkii ugu horeysay shaqadii waxay nidaam burburay in dib loo soo dhiso waa lagu guuleystay amnigii deegaanka oo burburay oo hay'adihii amnigu kala yaaceen oo muxuu ahaayey xisbi kala yaacay oo maamuladii kala yaaceen oo qabiiladii qori isu wada qaateen in la xalliyo markaan ka tagno waxyaalaha hadda weli taagan waa lagu guuleystay isbedelkii siyaasadeed ee dalka ka bilowday oo isaga laftigiisu aad iyo aad complex u ahaa hadday tahay xisbigii qaran ee la sameeyey oo ahayd formula cusub oo dalka ka abuurmay oo qaabkii loo wajahayay su'aalo badan ka jireen ama dood badan dhelinayay hadday tahay doorashooyinkii inaan ka qayb qaadano oo aan dhinaca saxda ka raacno siyaasadahaas dalka ka dhacay waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysanay oo ay gaadhnay hadda in xagga saameynta dalka madaxweyne ku-xigeenka xisbiguba uu yahay Soomaali taasoo muujinaysa heerka aan la qabsigii arrimihii dalka isbedel ka dhacay inaan Soomaali ahaan aan ka dambe laga gaarin dhanka mashaariicda hore ee socotayna la sii wado kuwo flagship projects noqdo balbalaaran sida jidadka oo kale biyo-gelinada magaalooyinka oo kale iskuulaadka boardingka oo kale kuwo fikir iyo hal abuur ku jiro oo kor u qaadaya wixii hore loo yaqaanay mashaariic loo oran jiray
ama wax ku soo kordhinaya in iyadana lagu darana in lagu guuleystay baan aaminsanahay dhanka abaarta iyo dagaalkii waqooyiga ka bilowday saameyntiisii dhaqaale ee dalka ku yimid inagana ina saameeyay in la maareeyo oo laga soo gudbo inkastoo wajigii labaad sidii hadda la sheegay ay harsan tahay oo weli abaarihii iyo wixii mas'uuliyadii ay inaynu maareyno ay sii jirto haddana in laga baxo sibadaas soo jirtay in wax laga qabtay hadda waxay nagu soo kordhay oo hadda taagan marka laga tago shaqooyinka routiinka ah highlightska dawladnimadeena guusheena iyo guuldareedena ay ku xirnaan doonaan waa arrimaha sicir bararka iyo nolosha dadka iyo arrinta weerarka al-shabaab wuxuu bilowday si rasmi ah 20kii bisha July maanta waa 30kii bisha July waxaan ka joognaa 10 cisho xil aan guulo sheegano ama guuldaro sheegano midna laba joogo ifafaalo fiican iyo jawaabi degdeg ah oo wanaagsan oo khatar ballaaran oo soo wajahnayd ka hor tagtay waa sheegan karnaa waan ku faani karnaa طبعا haddii dagaal la galana dhibaatooyin ku soo gaarayaan laakiin imika arintaas al-shabaab weerarka ay soo qaaday iyo qaabkan u meereynayna wuxuu noqon doonaa howl markiga ama waxa lagu qiimeyn doono nidaamyadan ka hadlaynay nabadgeliyo iyo dawladnimadeenu inaynu ka qabanayeen kale soo kalfadhiga kan ku xiga waa in uu inoo suurtageliyaa inaan al-shabaab ka guuleysanay inaan si dhab ah u xaqiijino toddobaadka waan ka guuleysanay laakiin aan si dhab ah u xaqiijino in kale waxay ku xidhnaan doontaa shaqada halka laga qaban doono waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaan warbixin lagu farxo 6 bilood kadib ama inta ka hor badii kalfadhi aan caadi aan u baahno aan soo jeedin doono maadaama fikirkii iyo qaabkii lagu hirgelin lahaa milooyinka ilaalinta amnigeena deegaanka aan aaminsanahay inaan hayno maadaama diyaar garow iyo ka goonaanshihii in la saxo wixii qaladaadana uu nagu jiro dhanka arrinta sicir bararka arrin joogto ah weeye xaaladaha adduunka iyo xaaladaha dalku ba isbedelo jira oo saameynteeda laftigeeda laga yaabo inay naga caawiyaan waxa kamid ah Ukraine iyo Ruushkii waxay ka heshiiyeen in qabandigii xanibnaa oo kale ilaa shalay oo kale inuu soo baxo oo maadaama adduunka cuntadiisii uu kor u qaadayso heshiis baa lagu gaaray at least in aan wixii adduunka cuntadii u dhoofisay labada wadan ee u badan soo saaray maadaama yihiin in arrintaasi waa ay wax hagaajiso dhanka shidaalka oo kale in laga qaado kabida iyadoo ay dhibaato keenayso haddana dhinacii kale muxuu ahaa helitaankii shidaalka improvement baa ka jira kasoo reyn baa imanaysa sababtoo dadkii ka shaqaysanayay shidaalku waxay markaa ay returnki ay helayeen markuu bataba dhoofintii iyo kontrabankiisina uu yaraanaya markii faa'iido laga helaya ay soo yaraato marka xaggaana waxyaalaha caawinaya jira dhanka macroga arrinta ugu weyn ee sarifka la xidhiidha lacagahana iyadana dalku xoogaa dhaqaale uu helay dhawaanahan iyo heshiisyo caalami uu galay baa jira oo muxuu ahaay xagga dollarka isbedelo muuqda maalmahan in laga arkayo ayaan filaynaa laakiin isbedelkii rasmiga wuxuu imanayaa marka go'aan policy sax laga qaato sarifka oo faraha laga qaado in suuqa xorta laga dhigo taana in loo socdo fafaalooyin jira waxaas oo dhan waxayna in diirin gari kara weeyaan dhinaca su'aalaha dhanka amniga taan galo waxa laga hadlay arrimaha xuduudaha waa sax sida inta aan soo qaadanayna anagu waan ku baraarugsanay baan oran karnaa boqoshooyinkii aan sameynay sanadkii ugu horeysay waxaan aad u marnay meelaha xuduudaha dareenka shacabkana waan soo aragnay kuwa maanta halka laga hadlayo haday degmooyin tahay haday horumar in la gaarsiiyo tahay in xuduudaha waxa ka jira wax sii socon kara ahayn oo sooner or later su'aalo ka iman doonaan way muuqatay aragtimaysan laga qaato laga doodo oo baarlamaanku gudiyo la sameeyo oo la tago oo la soo eego si aynan afkaaro qabaa'il inoo dhaxgelin maadaama wax loo dhaqaaqo inaga dhaqankeena ay tahay in qabiil loo macneeyo waa loo baahan yahay laakiin arrimo garoosho oo halka ka jira aan aaminsanahay inay tahay arrin gara oo ay tahay in la saxo waxa loo saxayaa maaha inaan shabaab ka soo gelin waxa loo saxayaa maadaama cid walba oo deegaankan perimeterka deegaankan dalka aynu ku jirno ku dhex jirta hal shakhsina ha noqday maadaama uu xaq muwaadin leeyahay inuu adeeg helo inuu nabad helo inuu horumar helo in aan arrinta dawlad ahaan saxno weeyaan oo sidii inagu deegaanka aan ka ahaan jirnay Ethiopia waagi hore oo nahayn periphery centerka ka fog innagana center inagoo jijiga maanta center noo tahay periphery deegaanku leeyahay baa jira marka peripheryska noocaas ah ee weli aan dawladnimadii gaarin in la gaarsiiyo waxaan isleeyahay nidaamkan dawladda hadda dhisanin
inay shaqo ka dhigato waa waajib wixii ay dhamaystirtana way fiicnaan wixii ay ka tagtana xukuumadda dambe ay ku darto ee ka dambaysa dhanka xuduudaha waan ka hadlay xagga amni ahaan hadda arinta gobolka galbeedka city iyo arrimaha al-shabaab xuduudan dheer ee Soomaaliya iyo Kenya la leenahay ayaa ugu muhiimsan kuwaana kulay golaha amnigu uu ka fadhiisan doona maalmaha soo socda directionada laga qaatana golaha xildhibaanada wala wadaagi doona waxaan isku dayi doonaa in forum ay iyagu u dhan yihiin oo hadda waa briefing ama warbixintii aan siinay golaha cabinet markaan soo laabanay waan casuunay afayeenka baarlamaanka iyo marka inaan golahan gol ahaan inaan briefingkii siino iyaguna ay la wadaagaan xildhibaanadii iyagoo u raacay qaab dhismeedkoodii aad bay muhiim u tahay si aan isku page uga ahaano bal maxaa la jira laakiin de xogo amniga ku saabsan oo fagaarayaashan aan la keenin inay jiraan in la ogaado meelna kama dhacdo adduunka marka xogaha amniga ku saabsan qaarkood inay de secret ahaanayaan oo gaar ay ahaanayaan cidda mas'uuliyadda lagu aaminay arrintaas inay haynayso in la ogaado ayaa muhiim dhanka kuradhaamole barakacay baa jira dhibaatooyin magaalada haystaan way jiraan arrin aanu hadda in badan deegaanka Oromiya kala wada hadlayna ma ahayd haddana waxaan filaynaa mar la dhaweyd madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha Oromiya ka Soomaaliya tagaan bay ahayd oo baarimaha si nabadgelyo lagu soo xalliyo dib u dhac ku yimid maadaama hawlo ballaaran ay deegaanka Oromiya ay ku jireen hadda laakiin waan arrintii dib aan u bilaabaynaa in amniga sugidda dadka iyo gurmashada dadka barakacayaasha iyo xallinta waxa asaaska u ah dhibaatada intaba in la galo arrinta dhinaca hurso ciidanka way jirtaa arrintaasi way soo noqotay inaan wax xal ka keeno wala inaan hadda maalmaha soo socda iyadana aan ku darno qodobadaan dabagelino maan isleeyahay haddii xogo aan maqan ay jiraanna waa la wadaagi doonaa markaan aan bal halka ay gaadhay aan soo helo waana waa iyadoo arrinta inaan kala hadalno federaalka aan go'aansanay wada hadalna waan ka bilownay laakiin natiijadiisa weli ma hayno marka inaan daba galo natiijada lahayna waxa ugu kooka hawlihii waddanka ka dhacay cid walba focuskeeda anaguna abaraan ku jeedsanay ciidamadii qarankuna dagaalkii waqooyiga ayay ku jeedsadeen arrimaha al-shabaab la xidhiidha al-shabaab wajigii koowaad waan ka guulaysanay wax su'aal kama taagna hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iska hor yimaadeen oo hal saac ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro hal meel marka laga tago qaraxii shalay ay la beegsadeen ciidanka gawaarida oo u baahan inaan hoos u eegno waxaan ka baran karnaa aan saxro nasiib darro inkastoo dee naf dhimatay wax laga baran karaa una jirin hal meel oo inta istaageen ay la dagaalameen ma jiro meelahan ay lagu dagaalamay iyagoo cararaya oo baxsanaya xabad ay soo turay baa ku dhacaysa ciidanka hadday tahay aaga hulul iyo hadday tahay aaga feerfeerba iyo hadday tahay aata laftigeeda oo wiilashii maalinka hore la dagaalamay runtii haddadan laftigeeda dhimasho iyo dhaawac aan hore u arag in fara badan ay gaarsiiyeen marka wajiga koowaad ujeedadooda baa dagaalka laga qiimeeyaa casualty-ga lagama qiimeeyo ujeedadu waxay ahayd inay deegaanka soo galaan beesaskii ay sii diyaarsadeen ciidan soo geliyaan fara badan ciidankaasi halkaa dego halkaa ka jabhadayo fursadda lama siin hawl dhamaatay ma aha xalxaal bay u baahan tahay diyaargarow kale oo seexitaan iyo seelashii in la furfuray u baahan tahay wax laga seexanaya maaha waa wax in hawl dhan oo la qorsheeyo aagaas oo dhan nadiifinteeda la gala ah hadday tahay fikir iyo muxuu ahaye shacab iyo wax walba laakiin waa hawl ay ku fashilmeen si weyn lagu jabiyey dhinaca xuduudaha dhammaan dhulkii xuduudaha ahaa ee dagaalku ka dhacay ciidamadeena jooga maanta fadhiya ku sugan halkaa in la adkeeyo ku sugnaanshaha kadibna loo gudbo in la wiiqo damaca iyo awoodda al-shabaab si ayna u soo dhiiran ayaa muhiim ah laakiin su'aalo imanayaa jiro al-shabaab hadda kor Itoobiya mayna weerari jirin maxay hadda weerartay muxuu ahaayey su'aalaha noocaas oo kale ah dee waa run oo hadda ka horba deegaan ka tirsan dalku ciidankii qaranka intuu weeraro hubkii kale ma wareegi jirin si ka dhacday Tigray oo kale hadda ka hor wax la ma jiro xilli kasta xaalad waxa soo baxay degdeg September 11 diyaaradaha Mareykanka galay diyaaradii al-Qaacida galay Mareykanku ma jirin markaa ka hor is always first for everything wax walba wax u horeeya jira maxay al-shabaab noo soo weerartay xilligan qof kastoo fadhiya uu garanaya calculation-ka ay qaadatay waa in dalkani xilli la weerari karo uu yahay weeyaan xoog kala riixaya ma riixayaan waxa dib ay nagu dambayso taas ma beenba maya ma aha sababtoo ah deegaankeenu wuxuu ahaa deegaanka ciidanka ugu badan dalku uu joogo saad ogtiin hadda xaalad jiddan waad ogtiin kolka inay cabir noocaas qaataan
taasaa keenaysa waxaa kaloo muhiim ah in ciidamadeena iyo capacity-gooda iyadana maskaxda lagu hayo iyo wixii loo tababaray iyo ujeedooyinka loo tababaray taana maskaxda in lagu hayo muhiim weeye laakiin si kastay tahay awood maanta loo yidhaahdo mana loo soo gurmado oo al-shabaab ay wax naga qaadi karto ma jirto meelaha u baahan in federal engagement uu yimaado oo hubka waaweyn iyo arrimaha ka hadasheen oo laga howlgalay haddana isbedel baa jira labadii cisho u dambeysay 10 cisho soo socotana waxaan filaynaa in isbedel jiri doono kulli laba cisho kadib marka shirku naga dhamaado anagu waan tagi doonaa aaga hore goday maaha meelaha hore waan tagi doonaa insha Allah meel ay noqonayso amniga hawlaha awgeed u sheegmayno laakiin markaan halka hawlo laga qabanaya jira halka iyaguna wali wajigi labaad oo adkayntii xuduudaha halkaan waxaan isleeyahay waxyaalaha goldolooyinka ee hadda dadku ay soo tuureen durba ee ku saabsan technical ku dagaalamayaan nuclear technical hello iyo waxyaalaha la mid ah halkeeda in la arki doono ayaan rajaynaya maantada aan joogno si buuxda al-shabaab ay ku fashilantay damaceedii laakiin way fashilatay macnaheedu waxba inama yeelaysa ma xoog argagixisa oo magaalooyinka inuu qarxiyo raba oo wadooyinka inuu miinayo raba oo waxyaalo badan ka shaqeynaya way marka in awoodiisa lagu waxay u baahan tahay collaboration iyaduna la yeelanayo maamulada dhinaca kale ka jira marka shaqo bilaabatay iyo hawl bilaabatay in loo arko ayaa muhiim ah hawsha al-shabaab intaana ka bixin sirdoonka iyo arrimaha ku saabsan halka kaga hadli maayo yani hay'adda sirdoonka ee deegaanka waxa laga bedelay waxaan sameyn doonaa iyadana brief ma bixin doonaa capacity-ga kor baa loo qaaday marajaaga deegaanku wuxuu ahaa marajaa ka shaqeeya ama intelligence-ga deegaanku ilaalinta mas'uuliyiinta halkan joogta iyo waxa la oran jiray ururada nabadgelyada intelligence capacity inta ka baahsan suuqa dadka jooga waxay hadal ku hadleen iyo wuxuu jiriya ka baxsan ma jirin hadda hay'adan waa la dhisay mushaaraad fiican baa loo qoray xogaha ay keenaan xoga premier oo aad u sareeyo weeyaan hal uu dhaqan gali waayay hawlahaas waa hawlahan leenahay halkan fagaarahan lagama sheegayo waxyaalo badan oo laga yaabo inaad dhexdiina ay ku jiraan annabaan la qabno laakiin halkan aan ka sheegayn baa jira laftigooda kuwaana marka loo baahdo halkan kama sheegayna ma iyagoo organized iyo habaysan jawaabaha laga bixinayo sixitaanka in laga arki doonaan aaminsanahay arrimaha noocaas laakiin waxaad ogaataan arrinta al-shabaab marka laga hadlayo annagoo aad iyo aad ugu mahadnaqayna dhammaan shacabkiina deegaanka sidii ay garab istaageen xukuumadda sidii ay uga jawaabeen sidii u muujiyeen nabad jacaylkooda anagoo aad ugu mahadnaqayna ururada mucaaradka ee deegaanka dhammaantood sidii ay kaalinta fiican uga qaateen inay taageeraan xukuumaddu qorshayaashii ay qaadatay ee difaacidda shacabka ahaa haddana waa inaad ogaataan dadka ka hadlaya detailka arrimaha dagaalka iyo say wax u socdaan inay ku jiraan kuwa baadida nalo deedeeya daal naga badan laakiin oo aan rabin inaan helo baadida daayna bidkeed inay ku jiraan maskaxda lagu hayo iyaduna aad muhiim u tahay maanta kala maaha maalmihii la isturayay maaha maalmihii la soo qaadqaaday ururiya waxaas laakiin xaqiiq ahaan cadeymaha iyo waxa jiro waxa weey inay jiraan dad jeclaan lahaa in ciidan ku jabo inay jiraan dad fursad ka raadinaya in amniga deegaanku khalkhalo wax shaki kuma jiro marka kolka ay u arkaan meelaha qaarkood in goldolooyin ka soo baxaan kolka waxay la xiriirinayaan sixitaan maaha iyo waxay la xiriirinayaan laakiin waxyaalo xitaa dhaawacayaba difaaca dhan ee ummadda lagu jiro marka dad noocaas inay jiraan anagu cid gaar ah ku astayn mayno in maskaxda lagu hayo waa muhiim marka xogaha la wadaagayo oo dhan iyo ra'yiga la soo jeedinayo oo dhan ra'yi kulli difaac lagu wada rabo ummadda ra'yi kulli ummadda in shabaab jibis lagu rabo inay ahayn loo qaato in la ogaado waa muhiim ilaa hadda intaasaan yaan ka ognahay kolba dhufays in la isu galayeen inaad ogaataan oo kolka meel dagaal baa lagu jiraa anaga ahmiyadinadu waa inaan ku guulaysano dagaalka we want to win the war meel adduunka kama dhicin dagaal lagu jiro war iyo battle bay yihiin waa iska horimaad meel ka dhacay iyo dagaalka al-shabaab aan kula jirno ujeedadiisu waxa weeye deegaankannagana inaynan soo gelin argixisa falala ka fulin xadkannagana aynan soo gelin labada ujeedada laga leeyahay waa labada in lagu guulaystana waqtigeedii lama gaadhin waxa inta ka sokeeya waxa weeye dhacdooyin maalmo dhacayo iyo battliska qaar baad waagi qaar baad heli battliska in dadka lagu mashquuliyo oo niyad jab lagu rido oo afkaar kale laga abuuro meesha batal haddii dagaal la galana haddaad cadow dilayso aadna waa dhimani waxaan aaminsanahay in ka badan 600 oo al-shabaab in lagu dilay hawlgaladii maalmaha socday ilaa kuwii shalay adna waxba kaa dhiman طبعا kolka aan baabiino aan dilo aniga ma dhimanayso mataal meesha
cid jecel in cid dhamato ma jirto laakiin inaan dagaal ku jirno in la ogaado oo taa la haysto oo niyad jabka dadka abuuraya marka ay u arkaan in dano ay ka helayaan in maartay la halgamo iyada laftigeeda in lagu darsado qorshaha waa loo baahan yahay dabaradeed waa loo baahan yahay iyo samir waxa kale oo nabadgelyo lagu soo qaaday arrimaha la xiriira baasaboorka ما أنت أنا باسبور قالين حل أنت كالين تدورت فدراك يعني ما قرن هو يكوشران طبعا وقت قاعدنا يساين كل كهوا هو قال كيل سكوحر إياه لكن هذا هو يكوشران كالين تودي يكوشران وهذه وهذا الوقت بهن وان ودنا إلا وضع هذا كالين تودي يكوشران contribution ك ديجان كيجوا سكوشر ويهاوش صوت هذا اللي كده تكفير فكر كأبا شيرو وكلا حديرة سين كيلينا على شاب بنويها نجح حقنا تكفير سادرادي kolka hawlgallada imika aan bilowno sifaynta magaalooyinka taana in ay toos al-shabaab yihiin in ugu qoran yihiin in la ogaado talabeenka laga qaadayana aan taageerno hadhow yana iman unta takfiir oo la xidhayo iyo in hogaamin u dacwoonayso iyo odayaal u dacwoonayay iman diyaaliida mushaarka maleeshiyaadka ayaa laga hadlay mushaarka kaliya maaha maleeshiyaadka guud ahaan in hoos loo eego waxyaalo u baahan baa jira dhanka nabadgelyada halkaan ku soo qaaday laga yaabaa mushaarkaas haloo kordhiyay leeyahay in halkaaba laga dhexili karo sida shaqaaluhu ay goost u leeyihiin hay'adaha nabadgelyada goost bay u leeyihiin fara badan kolka intaanan miisaaniyad hor iyo wax keen aan horta bal talahayo laftigeeda inta hoos loo eego inaan isku iyada laftigeeda isku celcelino oo tayeynta looga faa'iideysto qorshaha sixitaanka iyo kookayaha isagana diyaar la yiraahdo waad waan doontaan arrimaha la xiriira baasaboorka iyo ID cardska waa sax saaloo soo jeedaan qaadanayna هذا وحنا أنا وأركي إن في عنتها إن قرار كردن لقى جوربة واحد وين هنقول قادتي ما دام عضو بقادتي إن أيدي كارد هذا أوردن بس يهور الله سميه وقاب عصب وعصري وديجيتال ويعدي شرعي وهي ستين لبعش يكون قادني صح أمني جاء وحلو قصة أنا دوسا مرتمى في عنتها ما إن قرار كردن لقى جورو جيب جوربة وأن خرج كوب بحنا ولا عكوب بحنا إن سحر له قرار كديان كانوا سمينه يضو أوامر تيدنا الراعينه فكرة كذا ودنك أمني جاء كولا تلاوين كلا قاضي كم ذا ciidanka iyo agoontii hal ogaado sax way tala fiican weeyaan dhalinyartii ku shahiiday baari haweenkoodu waa la soo kaxeeyay ku shahiiday aato haweenkoodu hadda baari bay joogaan saacad baan uga hawlgalay haweenkii halka joogay waliba fikro radical oo dhanka mushaaraadka inaan qaadano oo caruurtu ilaa 18 jir ay gaarayso mushaarkoodu u socdo qofka askariga dalka difaacaya hadduu dhinto maalinku dhinto in mushaarkiisa laga hadlo maaha laga hadlo qorshayaal noocaasa oo ciidanka kalsooni gelinaya waajibaadkeena ku gudanayna inaan qaadano ay taa waan ka fikirayna haddana guryaha la dhisayo dhulalka inaan iyadana xal ka raadino waa loo baahan yahay waxaan halkan rabaa inaan ugu mahadnaqo dadyo weli aan kulmin laakiin baaq dhul jeediye xitaa jijigo kale oo yidhi agoonta haddii wax loo dhisayo dhulka annagaa bixinayna oo muwaadiniina aad iyo aad baan u bogaadinayaa meelaha kale magaalooyinkana waxaan jecelahay meelaha kale magaalooyinkana inay dad noocaas ay ka soo baxaan waan ugu baaqayaa dhanka xalinta arrimaha raaso iyo salaxaad uu soo qaaday xildhibaanku khalad bay ahaayeenta ra'yi qof walba ra'yi uu leeyahay fagaarahan ra'yiga laga sheegto laakiin anagu procedureska iyo processka iyo wixii lagu heshiiyay baan fulinaynaa methodology-ga iyo processka iyo xilliga iyada xildhibaanada ma aydan ahayn marka qof walba meesha ka soo gaaro ma oran karo ma ka bilaabo waxa weeye go'aanadii la qaatay sidoo in loo fuliyo baa taagan hadda 100% inaan sax ahaano qasab ma wax walbana goldolooyin waa laga sheegi karaa laakiin haddii hadda dhibaatada taagan xagga nabadgelyada ka taagan actually qodobka xalinta khilaafaadka qodobka shacabku ay feedback siinayaan waxa weeye boqolkiiba 250 baa la xaliyay leeyahay kuwa kale maxaa loo xalinay laba go'aanadii la qaatay maxaa loo fulinay yaaba taagan marka go'aanadu haddii u baahdaan raacfaan iyo wixii laga hal la eego laakiin go'aanka hal la fuliyo marka hore arrimahaas waa arrimaha taagan weeyaan muxuu wixii ka yimaada go'aanadaas ay xalin u baahan in la xaliyo weeyaan laakiin process uu socdo oo mar walba qofku cabtaba ay wareegta oo go'aan aan lagu qaadanayn go'aan qaadasho la'aanta laftigeeda la sheegay qayb ka tahay taa maskaxda lagu hayo way la tahay dhanka cadaaladda xuquuq insaanka in mabda uu inoo ahaado oo hadda maadaama al-shabaab inuu soo weerartay aynaan uga faa'iideysan ama inaan isku caburino ama inaan isku dhibaatayna waa muhiim mabda inay inoo ahaato xuquuq insaanku laakiin iyadana inaan ogaano inaan waxyaalaha xuquuqaha waxaan xuquuq u aragno waayina ay jirayaan marka arrin la dagaalan argixisa la galo gurigaaga la baadhi habeenkii lagu soo gali mas'uul telefoon soo garaacayo gurigayga la soo galay oranay ciidamada ma kala garanayaan mas'uulka ku aan ahayn xaafadaha haween duruux xiran bay ku wada arkaan
kolka ma galan karaan kana mas'uul baa qaba kana ma qabo oran karaan marka xaafadaha baaraya way baarayaan marka inaynu dulqaad u yeelano arrimaha qaarkoodna waa muhiim maxkamadda iyo xeeraarinta iyo arrimaha laga soo jeediyo reformka waa sax sectorka cadaaladda guud ahaan sector la dumiyey oo aan priority ahayn oo lacag la gelin baa doorkan miisaaniyadda sadka arki doontaan xogaa in kor loo qaado cadaaladda iyo maxkamadaha lacagihii la gelinayay si uu macno u yeesho oo uu shaqooyinka in laga rabo uu u qabto waa laga shaqeeyay arrimaha jibriga mooyaalo kale waan qaadanaynaa arrinta waa cabasho soo noqonaysa intee leeg baa kotorbaan la xiriida intee leeg baa arrimo kale la xiriida in la eegay u baahantay marka guddi baan u saaraynaa maalmaha soo socda feedbackana waa idin siin doonaa ilaa iyo wadahadal heerkay doonaa gaadho waan samayn doonaa taariikooyinka waa khalad taariikooyinka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidku immediately haddadan ba inuu qorto muddo gaaban dhexdeedna taariikooyinka in loo bedelo kuwa haysta kuwa kalena qaadanaya cusubna in la siiyo in laga shaqeeyo wey arrinta Togo Jaale mooyaaliyo dawladda saameynta uu ku keenay ganacsiga kotorbaankii doolarkii wixii laga hadlayay iyo wixii la sameeyay iyadana in la qiimeeyo weeyaan si loo caawin karo magaalooyinkana in la sameeyo waan qabaa waan samaynaynaa iyadana waan qoranaynaa insha Allah diilaya gudiyada arrinta ka soo shaqeeyay waan dhisaynaa arrinta shidaalka iyo kotorbaanka inaan qaadano ma ahayn maanan qaadanba waanaan qaadan shirkii PP and asaba ku joogna actually privately xitaa waan u soo qaadnay arrintaas inay sax ahayn yani laakiin waxaad ogaataan boqolkiiba 90 propaganda annaga kotorbaanka bixinaa deegaanka Soomaalidu ka tagay wajaale hal xiro dadkii lahaa Soomaaliin baa wajaale hal xiro oo u arkay daacadda dawladda ay daacadinayaan halka lacag laga dhoofiyaa suuqinta lacag qaata wajaale la geenaya inay wax ku yeelayaan xukuumadda laakiin actually shacabku wax yeelay hal qof oo igala hadlaan wajaale lacagta la geenay ma la xiro يا مالك ماشى بنجدي لقى صحري إلا صهاد لي يصير المسيبة طبعا كنا بر هدي وجه اللي تجا وضعت على مقابل يا واحد وحني شال هذين بالله له مركا وحالا إنه ومدهان كل كهراء إنه حبودي إنه ومركا ميل جاراني عشان كي مادنا ميرسن إنه يا شرا هو أنا إسكت هنا أنا مرة ما نقادن أستعملها تي بلا شعب كنا يكون المامتي تغني وكم ده هذا هو ولا مسق ده كان مسق كشرا وجرا مسقينا صحنا وواجب لكن ست قار أو تلمامة أو ديانات الكدوم إنه بس وشجنا إنه وارجنا ما كان حكومات كل العيننا تيجي لفتنا يقوم يده وحوسنا يستعمله ديان كحي كينش تدد توجا أو يدو أي قعنت كويسو وطن كانوا كوبابتو هذا الصوماليين بيد سارج الصومالي وتوج لبا أمي كريم بولنشين مركز هذه ما أنت اللي يعني صومالي وتوج عد كشكيه سوي تبيان مشرت وتوج كل دوية ستيريوتايب كانوا عاصينا ديننا ويدو مهم ديد ما لكن بينا جودهنا نظيفين كهر سيدنا وسيدنا أنا موجود أرنتا وحلا كثيرنا وصحينا أيضا قيمين تودن بيسنا progress في عمل لجسمي نتيجة كصباح يعني إن شاء الله في إعلان طولان لأنك قف صومالي أو تشبريجا كشق لودي وان قبنا فيك الصحوي حلال وان وهالجمين هذا مركي هو نمت يسبدل كي وجريبه بشيء صار له صعود قفا شجعان فلي هالكم أنه قرنه سو بيشرين يركي كوحيجين بوها مركاين وفيك صح تاكلية ما بوليس كقبنا يا كتربان كلفت جود لأن الصومالي نقدان ولا قطرب هذا أكتر أرتوا كسوال هذا سوا كان اللي جد هذا وين عندي أرنو إذا كيف فينانسي نقولها وحالها إذا الصومالي واللي بوليس إلا سمي أي حلية وحكم إذا يسفهم كشعب كي إذا ليش أنا ولي حل اسمه هالكن هاد شو قال لكن إن كتربان لا تقال مزيد الدولة الديان كلو أميني وكبل أرنت يا كتربان كلك إذا كلاو قبيض بلو أميني يا كتربان واحد يمشي وحاس سلعيدا كان نجا صومالي أهو يمشي فريا ولقاته كهذا كتربان كويلو أميني الأمن جي ده مشهد كلام ولو أميني تامر كوا رينكرا وصحة وانا قادنا هنا وانا كوه الجلين هدي الليلة لكن تذكي وين إنه هلو إذا كفر تذكر هواين كي ملهن كتربان كباري لفتوا هدي الصومالي نقدان واحد من بهجاجي وان قبنا كيس كده مشهد كده عياو برا وارون وحنا قد حكى هولهن لكن أرنت وين لبارويا هل شخصنا هنقضي ديان كنا إنه بلا معنى كل انتما markay hay'adaha amniga ee deegaankeenu ay gaarsiiyaan wax inay si gaar ah loo eego marka hay'adaha amniga ee Soomaalida ay gaarsiiyaan ay iska noqoto isma weydiinaya ma aha saadalada arintana waan qaadanaa waan daba galeynaa wixii ka soo baxna waa la socodsiin doonaa golaha sharafta leh hadii la xilliga marka la gaaro hadda arin ka soo bax la soo dhigay tahay dhinaca Bombas iyo Keelaga yaala iyadana waan eegaynaa ariga xagga marka loo sii wadaan kotorbaanka aan ahayn xagga marka loo soo wadaan kotorbaanka noqonaya لكن هذا إنه حقائق كتير ينا استثين أرجع حاجة سوى الله سوى ما كانوا لقيني وطني مشرو أرجع حاجة الله سوى لكن شكي أو أربعة دافية جيجو وإيمان كرا مركا حقائق أيوه كتير إنك لفتي عند ذا لوحي كتربان إن نشوفينه
si wixii aan kontrabaan ahayn dadka aan loogu dhibin laakiin haddaynu qiil uga dhigno ari aad ogtahay in loo sii wada hargeysa haddaad tiraahdo jigaa loo wada laftigeeda dee waxaynu noqonaynaa dad kontrabaanka difaacaya shacabkeena dhibaato buu ka hayaa kontrabaanku baysi wey marka arrintaa inaan balansigeeda ku eegno waa muhiim laakiin waa in arrintaa cabashooyinka shacabka sidooda loo qaato oo la dabagalo ayaan isleeyahay dhanka hogaaminta shaqagalka iyo arrimaha laga hadlay xafiisyada hawsha khusayso waan dabagalnaa xafiiska madaxweynaha ugu horeeya shaqagalka dhibaatooyinka ka jira ilaa saxana waa tii lagu soo qaatay hadda shirkii qiimayntii u dambeysay waxaa laakiin fiican in inaga laftigeenu kolkaynu arrimahan oo kale ka hadlayno inaan laga wajiga bixin oo la yidhaha xafiis hebel baan tegey mas-uulkii waan ka waayey mas-uulka hebel ahaa waayo wajiga waxbaa jira iyo generalization aan xal keeni karin marka qofku hadduu xafiista adeeg ka waayo xafiis hebel adeega ka hadduu yahay way caddahay marka hadduu xafiiska u xil qariyo oo isku warwareeyo laftigeed bay noqonaysaa annagu taanada wadana laakiin xildhibaanadu guddiga joogtada ee adeeg bixintu isaga laftigiisu reportigu noo keenayo inuu mid specific noqdo specific si guud inuu noqdo ma xafiis hebel waa actionable report way waa report go'aan lagu qaadan karo war suuq ma marka inay hawsha qabtaan oo capacity executive isagu isku monitor gareynayo taa kale ee legislative baarlamaankuna ay la socoto waa muhiim laakiin arrimaha dhalilaha jira way jiraan waa in la saxaa hogaaminta meel kasta joogto arrimaha shaqagalka iyo adeeg bixinta waxyaalaha aan qaadanay inaan saxno ay qiimaynta u dambeeya wax la diidaya ma arrimaha saxaafadda ka cararka way jirtaa iyaduna waxaynu ka nimid dhaqan mas-uuliyiinta lagu qasbi jiray dadka inay caayaan ama nidaamka inay difaacaan iyagoon la qumanayn inay difaacaan isagoon qofku la qumanaynba in la yidhaha orodoo difaac dowladdu waxaa taasaa dhaqanka noocaasa in laga guuro ayaan horta wax badan oo tanaasulaad u samayna runtii oo qofku damiirkiisa inuu ku hadlo wax ciqaab ka badan ma jiro qofku wuxuuna aaminsanayn in laga yeedhsiiyo marka hadday jirto hogaamin saxaafadda ugu tegi la gocosho way soo bixi doontaa iyaga hogaamin badan oo ka cararaysa saxaafadda qaar baa eed ka carara qaar baa in dhaliil loo soo jeediyo ama wax lagu sheego ka carara waxyaalaha noocaasa inaan iska saxnana waa waajib waan gelaynaa iyada laftigeeda waan ka hadalnaa mar walba laakiin kolley hadda inaan ku noqonayno xilligii ma aha hebel saxaafadda yaad la hadli weyda arrinta haddii specific arrin loo sheego uu tegi waayo de waa shaqo loo duruu qaban waayo wey taasoo kale taas saxaafad ka carar maaha waa assignment la siiyey shaqadaa qaba haddii la yidhi isdiritaankii baan ka hadlaynaa iyo xilqaankii waxaan ka hadlaynaa isagoo looba dirin inuu qofku yidhahdo waxaan waa systemkaygii dhaliilaa ka jira arrintaa taana waan isku qiimayn doonaa xarunta xisbigana kolley hadda qiimaynta markay dhammaysato boqolkiiba soddonkii uu la hadhay uu yidhi performancega shaqada lama xidhiidho arrimahaas wuu ku jiraya shakhsiyadda qofka integrityga qofka ka go'naanshaha waa waxyaalaha qiimayntii aynu samaynay maalmahan aan ku jirin cidda hoos timaada ay ka gaadhayso go'aanka waayo waa subjective cidda ay la shaqaynaysaana garanaysa wixii lagu go'aan qaadanaya wey waan ku go'aan qaadan doonaa isbeddelo waa laga arki doonaa isxilqaanka la'aanta la sheegay way jirtaa waxaa ka mid a deegaanka dhibaatooyinka ku soo kordha halkan xildhibaanada fadhiya iyo madaxbiisyadada fadhiya iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka qof walba roolka isagu uu joogo keliya inuu ka eego sax ma hadduu biyo ka shaqaynayo biyaha inuu ka eego hadduu beeraha ka shaqaynayo beeraha inuu ka eego hadduu gobol joogo gobolkiisa inuu ka eego hadduu degmo joogo degmo holistic view aragti guud oo waxaan u ahay xildhibaan baan u ahay ama mas-uul baan u ahay oo way khusaysaa oo xukuumadda inaan la qabtaa waa in la sameeyo kuwa sameeyo badanna way jiraan kuwa badan oon samayna way jiraan oo dabcan goldolooyinkooda ku qariya dhaliilaha shacabka ay sheegayaan inay iyagu ay ka beri yihiin inay sheegaan waan sheegnay annagu isagoo sheegin waan sheegnay annagu waan maqlayo misaan sheegnay waan ognahay oo u arka inuu iska beri yeelayo isagu shakhsiyan laakiin dee nidaamka uu dhaleecaynayo uu wax ka sheegaya waa nidaamkii isagu ku dhex jiray ceebtaa uu leeyahay noocay doona ha noqotee waxyaalaha noocaasa wacyigelina way u baahan yihiin sixitaanna way u baahan yihiin waan qaadanay sideeda u qaadanay adeeg bixinta hadalka ma jiro maaragtay in la saxo xafiiska civil service-ku ama xafiiska adiga shacabku waxyaalo badan uu bilaabay baa jira kuwaan baa la sii xoojini laakiin wax la xidhiidha shaqagali waxa aragti la xidhiidhana way tahay qofka meel jooga meesha wuxuu u joogaa inuu garto marka haddii ay dhacdo in mas-uuliyiin fara badani ay ka shaqaynayaan uun qarabakiil iyo waxyaala khariban iyo eexya ka shaqaynayaan waxaa dib in lagu noqdo ay tahay waa xulashada malaha dadka saxda maynan helin wey
والله هذاك استخدام مين هيندوي قال قف توش لو ilaalin habeen bal qofka masuul waxa loogu dhiibay meel loo dhiibaya inuu masuuliyad badan oo culus oo fuul lahay shakhsi isagu qaato marka in did we get the right people in Sweden waa iman doontaa diyaar leeyahay haddii qofkii la ilaalinayaba laftigeeda way jirtaa dhibaatooyin noocaas ah hogaamin ku sifaysan waxyaalaha qiimeyntii waagid iska soo baxdayna way tahay waana in la saxaa arrimaha basaska transportiga xaggeeda la xidhiidha ee jigjiga waa dhaliil jirta basas inoo taagnaa baa jiray in la kiciyaa la go'aamiyey waqtigii baa dheeraaday laakiin maanta feedback u dambeeyay muddo 20 cisho gudahooda geerish bay u baahan yihiin qaarkood iyo hagaajin in bus service magaalada laga bilaabo waa la go'aamiyey hadday tiradu yartaan in la sii kordhiyo taasa xal keeni karto bajaajida iyo waxaan iyo dadka culayska saaran gaar ahaan dadka danyartii ay kaga maarmi karaan qiimo jaban oo subsidiyaadina dadka maartay lagu sameeyo sicir bararka dhinaciisa maarintiida qayb ka noqonaysa qaybta wareegga labaad ee abaaraha oo xoolaha dhimanaya iyo arrimaha la xiriira galbeedka city kulli iyo xitaa deegaanadii kale oo bishan August markaan gallo iyo September kulaylkii u gaari doono biyo dhaamintii taana waa qasab dadaalkeedu waa wadnaa hay'adihii ina caawin jiray xiriirkeedu waa wadnaa maalmaha inay iman doonaan baan filaynaa World Bank uu shalay soo xiriireen shalay waxaan arkay USAID oo saxiixday lacag ilaa 400 milyan oo abaaraha waxaan filayaa inteeda badan inay deegaankeena ay qayb ay iman doonto marka wixii engagement la sameeyay hay'adaha loo waday faa'iidadeedii hadda waa in la arko lacag soo galan deegaanka in lacag soo galan lacag abaaraha oo inaga fursanaya marka lacagtii yareedeen koobneed ee haysanay ee horumarka iyo amniga aan ku qabsanaynay inaynu ayna inaga gelin inaan ka shaqeyno marka waan arkay wax warar fiican baa soo bixi doonaan isleeyahay dhinaca shidaalka iyo macdanta su'aalo la weydiiyay baa jiray maxaa laba meelood kaliya macdanta xoogga loo saaray xafiiska anaa ka boobay laba meelood kaliya in la eego ma waxaan isleeyahay un tabartoodan baa keentay labada meelood laakiin laba meelood kaliya ma la eego inta assessmentiga la sameeyay hoos loo eego meel walba oo macdan iyo waxaan iyo faa'iido ka imanayso waa inaan priority ka dhiganaa haddii kharash loo baahan yahay in xukuumadda loo keeno xafiiska madaxweynaha la keeno yaan soo jeedinay xafiiska laakiin sectorka macdantu waa meel shaqo abuur la keeni karta dakhliina inoo soo geli karta talahaana isbedel badan laga arkay dahabka oo kale talahaan waagi hore sidoo hadda aad buu u batay xitaa chaadkii iyo ku dhawaaday lacagta laga heliyaa dibadda marka la eego ama yaan u malaynaya lacagta moogi laakiin inuu noqday un top bunka oo kale waan ogahay inuu soo gaaray ama ku dhow yahay inaguna inaan macdanta laftigeeda oo si sharci darro ku baxday inaan ka dhigano priority qaybtii dakhli kordhinta iyo shaqo abuurka labada way galaysaa waa arrin fiican weeyaan lacagta la inaysiiyay maxay tahay tan mid waa tii dhulka land taxigi oo la inoo keenay laakiin cadaan u baahan tahay laftigeedu waan dalbanay arrintaana oo lacagtan la siinayo predict inay tahay lacagda la qiyaas karo la sii garan karo imisa bishii dambe soo socota يعني بيلز كنت بلي بالا كان بيش كلامنا بقولي لا بيه طبعا بيش دم مثال كينيا بيسكم هي محل قصة لين هذا شركة هذا هوس فدريش كان وجودي شوكتة هاي أريما نوع عنها وقصة قادني إن مور لو بهني لكن بورتجي نلسيه هو هبين العقبة بالورين فهمتي فكانوا يجيني العقبة الرويالتي والوري بيني يشتري بدل كورة محن ملايين واحد رأى أدير إنها يتردوا العقد تاسع سعيد قيبها الرويالتي جبهيد لحين مليون وكم من العقد بقولي تعاش ذلك بقولي عشان لحن كمودي لحن ككلو حنمودي إن حفيز صار إن الرويالتي هاي معدن تيجو فعلا لقى قادستان كسوتشي دي ريبورتيجا إن أرمى سعر بركة ها عشان يستيتهم مرة $1 عشان يستيتك $1 مرة وانسيش شيء ولا كرنا ولي قوي بانكوسي شيء معناها إن وحن واجا وأركين إلى لها وروجها هلوج جوز هبين كمر كلا لها ورميشن وحوم يالاني وماكرو بوليسي فيلير باجرة ماكرو بوليسي فوريكو أن لصحنا أريمهن دبدميس كرجولاتري ميكانيزم كسريشدو حكمين كلمات بين غكرة براسيتو موقفات سيسي وأوباهن دوين سيرجري أو بيتهابان كهلين وحالي الأورال كمالين اللي سوين واحد بها جاتين مركا إن وين مقتي مركا وحالي أدي مركا شرتين إن دتك وعداتنا وهلا وبقول قف كبرته وحبك يلي ميس وكبرنا إذا كنا 10 دقائق قادنا يعني وحلا هربوديان علمي قاعدين ولا هين لو راح توريو وجدت السياسيين اللي هيكون راح توري يعني إسكت فهمان تنعدينوا محا هالكلام مركان مريو إمك سعر بركة وكلام محا قرشين نوع وينو كه هذا اللي حتى كهر دقيقة كيس ما يسويديننا طلق يا دريال وان كه هذا اللي كبيت وان كه هذا اللي كبيس بتلم بهيدا أمني وكله ولو سمي كبيستي لو بلوت كهر بشي سنة بالكهر بشي سنة وهاي كدو ليس هيدا أمني إنه ميم نوجين أكتر ما أنت كله تقوي قادنا يا أخي أنت وايو عيدا كي ويران لو بكون بيربا هالمر لو قدري شارك أنا وقت يجي نلوش يدين كور لو قادو
يعني ما waxa laga yaabaa haddii al-shabaab soo weerari lahayn hadoo kale in dad ka doodi lahayn marka kabida dadka danyarta shaqaalaha dawladda inta yarna xafiisyada awaamir la siiyay baa jira qaab ay u caawinayaan laakiin waxaan u baahanahay tutaa ka balaaran oo ah xagga cuntada kale inta ba subsidiga waxa lagu keenaa cuntooyin xafiis ganacsigu hoos yimaada iyo laftiga isbedel baa ka jiro oo in hadda sidii waagi hore aan dad un iska siin waan ognahay laakiin inta laftiga la target gareeyo dadka masaakiinta ee shaqaalaha dawladda la siiyo raashin kabida oo kale iyo kabistii iyo arrintan ka hadlay dalaga daryeel iyo iyadana in muxuu ahaa barnaamijka PSMP-da urban food security iyo kii magaalooyinka PSMP-ga dadka kaashka lagu siinay iyo kii miyiga labadiiba inaan iyagana ka shaqaysiino oo lacag dheeraad oo dadkaas helayaan hadii qaaliyooday cuntadii lacag inay helaan dheeraad saddex ku qofku haystay oo bishii heli jiray oo dakhliya oo raashinkii uu ku qaaliyoobay 5,000 hadduu helo uu balance gareynaya marka in income-koodii kor loo qaado inay muhiim tahay iyadoo hay'adahaas la kaashanayo waxa ka socda dadaal fiican bangiga adduunka iyo way ballan qaadeen xagaana waxaan isleeyahay waa lagu xalin karaa arrimaha leydka la soo qaaday kulay waan daba galeynaa iyadana sidoo kale laakiin xog ahaan 100 maayo waxa la ii sheegay in sibir la'aantii jirtay xalkeedii lagu dhow yahay oo shirkadda xaggeeda cagtigu ka jiro marka inaan daba galo dhaqso aan sibirkaas shirkadda ka soo diino buu u baahan yahay mooyaale oo kale arrinta laga hadlay si buuxda ma ana fahmin laakiin intaan ka fahmay shaqaalihii way kala yaacayaan wixii lahaa iyo haddii qaab dhismeedka wax la xiriyo waxa la ii sheegay oo hadda report ay ugu siiyeen qoladan elpa in hadda ka hor mooyaale ay hoostiga jirtay jigjiga laakiin hadda godey la hoos keenay branch taas ay maxaa ku jira maxaan ku jira inaan waan daba galeynaa xafiiska waan soo wadaagaynaa hadii la yiraahdo dhinac waa arrin u baahan la daba galo si tijibriga oo kale weeyaan dhinaca mashaariicda ku dheeraan maayo maadaama aad looga hadlay qiimeyntii marka hay'adda dadka way u muuqatay tayada mashaariicda isla xisaabtanka mashaariicda ku haboonaanshaha mashaariicda meelaha laga dhisayo iyo waxa la dhisay laftigooda si la soo jeediyay dhamaystirka mashaariicda waqtiga loo baahnaa ama jiitanka ka jira iyo ka shaqaysiinta intaba waa dhibaatooyin jiro oo u baahan sida aan u qaadanay al-shabaab assignment kuwana in isbedel degdeg laga arko the next 6 months isbedel muuqda in laga arko arrimahaas oo dhan waa waxyaalahan qaadanay weeyaan dhibaatooyin ka jira sida xafiisyadu u kala leeyihiin in lagu la xisaabtamo waan qaadanay kaliya ma qiimeyntii la sameeyay in la raaco sida xafiisyadu ay leeyihiin haddii mas'uul la xisaabtamo mas'uulkan la xisaabtamo haddii qandaraasle la xisaabtamo qandaraasle la xisaabtamo waa in oo hadda ka hor sidii ahayd gashiban u qaadan luqadii ka wadiirtaan iska deeyno danka dabagalka mashaariicda federaalka iyo kuwa heer deegaanba goldolooyin ka jiraan iyaduna waa wax run oo jira weeyaan laakiin waxaad ogaataan dalka dhibaatooyinka uu maray in mashaariicdu jiitaan la yaab ma leh badanka mashaariic waxay u jiitamayaan ama sibir la'aanta ama shidal la'aanta ama lacag la'aantii laftigeeda ama markii hore la qorsheeyay laftigeeda ama jiitanku plan ah waxaad arkaysaa dhismo 6 bilood ku dhamaan kara oo loo qabanayo half lacagtii dhamaystir lahayd of course kaasoo kale dhammaan dhamaad lagu talagelin waa planned delay waa la sii qorsheeyay inuu halkaas ka taagnaado waay waxyaalo kale oo sidii qaabkii loo waday kii la qandaraasyada wixii lagu bixinay feasibility study la'aantii wixii jiro oo dhan bay qayb ka tahay xafiiska qorsheyntu dadaal fiican buu xaga ka wadaa dabagalka hadda iyo la socodka that's why mashaariicii 300 iyo dheeraadka ahaa 340 mashruuc iyadoo intaas caqabado jiraan ya awaari dhibaatooyin 165 kamid ah dhamaadaan 112 aan filayno bilaha soo socda inay dhamaadaan badankoodu waa 88 mashaariicii socotay waa wax runtii guul weyn weeyaan 37 waxaan u jeedaa 37 mashruuc oo ah 12% aan ku celinay arinta ayaa mashaariicda 50% ka hooseeya ay dhibaatadu ka jirto kuwaana in go'aan laga qaato haddii la dhamaystiro haddana la dhamaystirkeena go'aan laga qaato bay noqonaysaa haddana lacag loo haynayo in lagu xisaabtamo in intaasoo mashruuc ay sanadka dambe u gudbi karaan in la isla qaato kulli mashaariic gudbi way jirayaan dhinaca procurement-iga ama iibka dhibaatooyin weyn baa ka jiray waana waxa ugu badan shacabku ka qeyliyeen taana wakaaladda iibka waan la shirnay maalin report aan la qaadanay talada la soo jeediyay waan qaadanaynaa doctorku soo jeediyay ma ku habboon tahay oo qawaaniinta iyo bayaanada jira ee hadda aynu ku shaqeyno ee xafiisyada iyo awoodahooda iyo ma waafaqsantahay hoos loo eego u baahan tahay matalanba shakhsi aad meel geysay oo khaldan oo si xan u maamulaya nidaamkii dawliga ahaa looma buurin karo iyo bayaanadii aaminaadda shakhsi la aamin darteed ma marka hadduu qofku khaldan yahay in la xisaabtamo ka horeysa laftigeeda le waxa saas ku bixi leeyay guldolooyinka xagaa ka jiray hadda xafiisyada waa loo sheegay wax walba in laga dhigo tender bid la soo dhijinayo su'aasha waxa weeye hebel ma soo dhijin maxaa talaabo laga qaadi weeyay in la soo weydiiyo
hebel ma soo dhejin marka dhejintu qayb ay xalinaysaa in dadku wada ogaadaan inay u tartamaan cidda qaadatay iyo xiriirka mas'uuliyiinta in la eegana iyaduna halka ay noqonaysaa waa performance audit-kii oo kale marka haddaad sharci waafajiso oo dejiso oo laakiin aad farso haddana sideeni aad samaysana cidda qaadatay wax qarsoomaya ma hawaayo in la isweydiiyo iyadana waa loo baahan yahay cidda qaadatay iyo cidda mas'uulkii hadday isleeyihiin kulli waa la wada xaday maaha qofka xafiis wuxuu doontay badiku ay si uu loo xiriirinayo wuu ka heli karaa mashruuc laakiin inaan ku qanacno processkii la dhigay inuu sidiisii loo maray iyaduna waa kow oo hadhow in laga dhigto intaan sheegaya hadda sabab maaha xafiis hebel waxaa jooga nin ka soo jeeda degmada heblaayo xy qandaraas la hebelna degmadaas wax ka helay sheekada noocaas meesha ma taalo wuxuu ku helay qiimuhu ku helay tartanku siduu u dhacay tayada qandaraasuu leeyahay performance-giisii hore ma u qalmaa shaqada ma qabanaya parameters lagu cabirayo inay jiraan arrimahaas waa arrimaha dhinacaas mashaariicdaasoo kale gaaluun bariishka oo ah mid laba deegaanka iyo isku xidhaya gobol dhan kuma jira miisaaniyadda la yidhi laakiin waa la samaynayaa boqolkiiba 40 ayay xukuumaddu inay bixisan tahay boqolkiiba 60 WFP marka lacag in loo qabto waan go'aansanay qaabka ay tahay faafaynta waan bixin doonaa laakiin waa mashruuc in la sameeyo ay tahay dib u dhici karin tahay maskaxda lagu hayo waan idin sheegi doonaa waan la socodsiinayaa ma cirka lacag inoo imanaysa si aan loo odhan iyo xaggay tahay iyo la soo weydiin waxyaalo lacago aan source garaynaa jiro oo dheeraad oo meel kale aan ka heli aan rajaynayno kuwaas inaanu ku darno aan rajaynaa jidadka badan ee hala soo koobo waa sax waa arrinta ugu weyn ee soo jeedinay gurmadka ugu horeeya waxa weeye jidadka wixii dhamaan kara aan dhamayno wixii aan dhamaan karin jidadku baayso dhamaadku waa maxay 120 kilomitir haddaad lacag u qabatay oo 120 kilomitir aad 40 dhamayso dee loot baad dhamaysay marka qofkii 4 saac u socon jiray ugu yaraan 40 kilomitir buu ku ordayaa kolka jidadku waxay leeyihiin sharci gaar ay leeyihiin oo kolba loot baa loo sameeyaa marka inaan loot ka dhigno si ugu yaraan haddaadan 120 dhamaynin bal 60 ka mid ah dadkii ay si caadi ah u maraan at least distance lagu soconayay half bay ka dhibaysaa dadkuna way dareemayaan in wax loo qabtay marka waxay oranayaan jid hebel aaga iyo aagaas lama mari jirin laakiin hadda intaasa yaa saxan intaasna waa harsantahay la oran doono marka jidadka inaan hoos u eegno lana koobo wala go'aansaday qorshaha miisaaniyadda aan soo dhigi doonno hadda iyo ka muuqan doonta hadii la yiraahdo ahmiyadda kuwa lana in la siiyo uu ka jawaabay Sheekh Xasan arrimaha dayactirka biyaha oo aan aaminsanahay in dhaqso looga midaliyan ay tahay ku noqon maayo tababarada iyo daraasaadku maxay natiijo keeneen daraasaad in laga sameeyo u baahan yahay iyaga laftigooda daraasaad hor laga sameeyo ma dismiss garayn karno outright ma oran karno waxba ma keenan faa'iido laakiin in hoos loo waa sax aan ku raacsanahay xildhibaanka tababaradeena iyo daraasaadkeenu in mar walba dib loo qiimeeyo maxaa soo kordhay xafiiskan waxaas laga tababaray wixii ma ka baxay awood noocaas ma soo kordhiyay in la yiraahdo la eego ay la quman tahay waa talaan u qaadanaynaa waxay u baahan tahay in taas marta loo qaato isla xisaabtanka qiimaynta gobolada xoogga la saaray laakiin si guud isla xisaabtanku inuu kor u kaco oo maaragtay la waxeeyo waa muhiim hanti dhowrka reportiga ay keeni doonaan waxaa ka muuqan doonaa in isla xisaabtankii wax halban ka soo kordheen hanti dhowrka reportiga ay keeni doonaan oo dad badan loo xidho musuq hata habel la yidhaha kuwa hoose iyo dakhliga unbaa la musuqa dakhliga mashaariicda unbaa ugu badan musuqa anyway lacagta ugu badan la musuqi karaa ama mashaariicdaas iyo waxa ama dakhligu iyo financial misappropriation kale oo jirana way jiraan oo iyaguna inspection reportiga fiican oo shacabka la wadaagay marka talaabaqaadkeedii iyo sixideeda hala sameeyo waa sax gobolada arinteeda iyadana haddii waxaan khaldan yihiin qaabka loo qiimeeyo iyadana in la saxo weeyaan procedureska oo cidda ka sarreysa ay qiimeyso oo iyadana la isku dayn waa tala saxa waa la qaadanayaa gobolada kule anaga baa qiimeyn jira hadda ka hor waxaan u malaynayaa guddiga fulinta gobolada la jeedaa in gobolkii lagu daayo maha la leeyahay waa sax heer deegaan cidii inay dhex fadhido waa ay la ogaato waa ay la quman tahay si dee heshiis iyo isku xidhnaasho uun wax ku salaysan uun meesha u iman oo aan meesha waa arrin fiican weeyaan haweenka iyo ka qaybgalka haweenka kor loo qaado boqolkiiba boqol waa arrin aan taageersanahay si taa loo hirgeliyo haweenka baarlamaanku ee arrinta iyagu hormuud ha ka noqdaan waa mar walba soo qaadan ha soo jeediyaan magacaabinada la soo dhigayna ha horboodaan ha taageeraan arrintaas maarta mustaqbalka wasiirada iyo ku-xigeenada iyo wixii la keenayo haweenku hormuud ha ka noqdaan waan ku raacsanahay heer deegaan bilow fiican baa jira heer gobol waxba kama jiraan heer degmada kaba sii dara marka in labada jaran si cad toos hadda si dhaba in loo galo waan sameeynaa doorashadii ka hor waad ogtiin inaan oran jirnay haweenka waan heer deegaan waan sameeynaa waan ka dhabaynay kaabini ahaan iyo ku-xigeenada weli wax badan laga hagaajiyo u baahan
taas marka waan qaadanay insha Allah waa la arki doonaa isbedelka dhanka al-shabaab la dagaalanku iyo kaalinta dumarka runtii aad iyo aad uma soo koobi aad iyo aad bay uga qayb qaateen istiritaanki waxay iyagoo sicir barar u jiro iyadoo baahida ay jirto wixii ay sameynayeen cunto wixii busku sameynayeen waxay yani wax la maleyn karo runtii ma waxa anagaba cajiib nagu noqday buu ahaa hargeeliya inta u dhaxayso go'di markaan marayna waxa soo baxay haween anaga oo mas'uuliyiinta meesha marayay ah iyagoo yaacaya biyahan Highland iyo kooka iyo wad garan kartaa miyiga marka la joogo biyaha Highland iyo kooka iyo qiimaha ay leeyihiin waxay soo siisteen noo keenay anaga meeshii marayna oo yiri qaatoon macnaha ciidankan saa wadada ugu taagnaa baa jiray wax la soo koobi kara maaha kulay waxaan ay qorsheysnaa labada maalmood soo socota ama intaanantii ka hor inaan shir weyn oo haweenka u qabano halkan ugu qabano oo mahadnaq gaar ah oo kaalinta ka ciyaarayna inaan sameeyno yaa noo qorsheysnayd waxaa loo aan ka tagay haddii jiraan waad iga raali ahaanaysaan laakiin dhextaal arrimaha baa jiray oo la soo turturay oo sidii arintii garlowgiba ceelka oo kale waa in hoos loo eego maamulkii gobolka halkan way joogaan marka ay taas oo kale heer gobolna ku eegaan ceelka waa muhiim laakiin jidka lacag ku baxaysana waa muhiim saguna iyo sababta halka loo mariyay marka haddii ay noqoto in jidku ka muhiimsan yahay halka la mariyo aagaas maadaama biyo leeyahay ceelkan waa ceel xil hore la qodo hawe waa un ra'yi macnaha ku kala laga agaro qodo shaqada lafsa ha qodo waa la oran karaa macnaha meel ka dhow marka in waxay u baahan tahay un xilligana in la eego xilli abaar ay jiraan oo dadkii biyo la'aan yihiin inta ceelkii joojiyeen iyadana waa la oran karaa xilligan abaar ma jirto xilliga roobka oo kale aynu sameeyno marka xogteedii macluumaadkeedii in la helo ayaa loo baahan yahay laakiin gobolka arinta ha qaato anana xafiiska madaxweynuhu daba gali haddii dhibaato jirto waa la sixi nidaamka qabiilka iyo arrimaha wax lagu hayo nidaam qabiil iyo waxay kala yihiin matalaad nidaamka matalaad lagama bixi karo inaan waaqici noqono xaqiiqda isu sheegnaa muhiima dadyow inta badan ku soo celiya nidaamka qabiilka deegaanka laga guuro deegaanka Soomaalida bay arinta ka codsadaan nidaamka oo kale yihiin kuma jirto Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland iyo kuwa ay kama hadlaan marka ka hadlayaan iyo federaalka Soomaaliya hadda dawladda laga dhisay kama hadlaan raali ka yihiin qoliyada ku ceelis arinta marka qabiil waxa la yiraahdo ma waxaan ka hadlaynaa constituency qaab nololeedka dadkeenu waxa weey waa qaab dad isku urursan meel ay degan yihiin constituency-ga tuulo jooga dad isku family oo protection iyo amaan wada raadsaday oo meel ku ururay weeyaan hab nololeedkeeni ha laga guuro meesha ma taalo degmooyinkeena ay u yaalaan degmo walba dad baa ku urursan marka representation iyo inclusivity in dadku ay meelaha ka soo jeedaan ka wada muuqan baarlamaankan caawa maanta hadii uu ka koobnaan lahaa 5 gobol oo 6 gobol ka maqan yihiin baarlamaan deegaanka Soomaaliya yaa matalo way lama yiraahdeen marka waa inaga maskaxdeena adiga qofka ama hadaad u qabiili tahay wax kasta qabiil baa ku arkaysa laftigeed marka qaybaha waa sixida aragtida laftiga aan qabno maskax ku hayno qaybaha waa sixida dhaqanka mas'uuliyiinta dhaqanka qofka mas'uulka ina qaabku u dhaqmayo hadii isaguna uu qabiilno taana cid ka badbaadaysa ma jirto qof walba pressure qabiil baa saaran qof walba anaga ku dooranay wada jirtaa iyaga doortay marka political realismka qofka meeshu ka soo jeedo inuu qanciyo iyo professional muxuu ahaa responsibility-ga in la soo afjeen u baahan tahay oo qofku uu damiirkiisa ku eego wixii uu damiirka ka soo jeedo uga doodi karaan ha uga doodo wixii de khalad ay tahay ka saxo dadka inay u dhaxeeyana ku dadaalo marka waa u baahan xagga baa laga eegayaa laakiin shaqada qofka meel la geenaya qof ku haboon han noqdoodu iyadoo 100% waa geedka waa ma garanaysaa waa biyo kama dhibcaan qofka meel la geenaya wuxuu doonaya han noqdo ama consistency ku yimaado laakiin qof shaqadii qaban kara oo tayadeedii integrity-geedii la han noqdo waa sax iyadu meelaha qaar kood marka in meel muhiim ah qof la leeyahay qabiil baa lagu qancinaya uu jooga waa khalad qofka inuu ugu wanaagsan ee professionalka jooga halka in la geeyo hadii qabiilka kale la qancina meeshii kale qof kale iyaga oo isna fiican meel loo raadin lahaa in la isla doonto baan u qaadanayna waana talo fiican oo sax arrimaha kale miisaaniyadda magaalada Jigjiga iyo bilicda arrimo ku saabsan qiimeyntiina waa la eegay kulli miisaaniyadda arinteedana kulli waa markii miisaaniyadda la gaaro waa la soo dhigi doonaa qorshayaal dhanka miisaaniyadda magaalada caasimadda ku saabsan tabliicda طبعا magaaladu waa wayna qaadato waana loo sheegay qiimeyntii uu dameysayna iyada kaliya ma magaalooyinka wad la socoteen sidii loo soo dhigay goldolooyinka jira inay saxaan 600 milyan ee balansiga waan haysanaa
marka waa miisaaniyadda hadda aan sixinayno wixii federaalka inooga yimid wixii dakhliga aan soo saarayno iyo 600 milyan hadhaaga inoo ahayd bay isku jirto hadii la yiraahdo marka wax uu inoo galeeya miisaaniyadda hadda aan haysano structure-ka xafiisyada 2 iyo 3 ku xigeenaa jirada waa run transition marka la galayo inta badan buuq badan uu jiro salbalaar baa dawladda laga dhigaa inta badan political formula la raaco adduunka so naturally you end up having a very bloated bureaucracy balaaran oo yani ma aha sida hadda dalalkan jaarka aynu nahay oo kale 80 ka kooban wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo waxa soo kale laakiin mararka qaar kood qayb transition ka mid way tahay markii aan nimada u horeysay xafiiska madaxweynaha kala hadlay kolbay advisoradu content gaadhin ba oo qaar ka mid ah xafiiska oran jireen ma iyaga la taliya mise iyaga la taliya laakiin waxaas oo dhan hadda waa ka soo ururnay hadda efficiency aan u guureynaa inclusivity iyo transition waan ka baxnay efficiency iyo system building maadaama loo guurayo abadami maadaama la gaaray arinta xilliga in loo gudbo ay tahay waa in hoos loo eego xafiis kasta structure ku qaadi karo in loo eego waa arinta oo sax ah oo structure-kan ma ku weyn yahay mise kuma weynada inaan eegno waa loo baahan yahay laakiin haddana politically sida uu noo anfacayana isha lagu hayo iyada laftigeeda haysiga dadku isku qabsanayaan ku xigeen 2 iyo 3 iyo maaha waa mentality-ga meesha taal laga baxo hadda laba ka xabseedkii ku xigeen is qabsanayaan haddaan shuruucdii iyo qawaaniintii laga saarin maadaama ay 3 yihiin maadaama resource-gii 3 qacmood ay gelinayaan oo hadday 2 yihiin ay roonaan lahayd maaha macnuhu waa inta iyadu mentality-ga la saxo weeyaan dhinaca dalag iyo daryeel quwadda leerka hal isticmaalo 100% waa arrin fiican doctorku soo jeediyay sida uu qaadanayna uu ka jawaabay Dr. Cabdiqaadir duruufaha jira laakiin waan raacayna iyada waxa qayb kamid ah TOR kooda inay ku jirta ay tahay gaar ahaan xafiisyada waaweyn oo kale iyo kuliba resource mobilization in xafiisyo ninka qofka meesha jooga isaguna uu istiro oo uu dhaqaale raadsado xafiiska environmentigu hay'adaha intuu identify gareey partnerka caawin kara lacag inuu doonto lacagta miisaaniyadda deegaanku siisay mid laba inuu raadsado xafiiska beeruhu inuu raadsado caafimaadku wuu helaa laakiin in ku ka badan uu si access gareeyo dadaalna sameeysan waan ogahay xilligii covid-ka kale wadada la xiriiray jireen Dr. Muuse marka resource mobilization inaan sameeyno marka waa laba mid waa in partnerska aan lacag ka doonano dheeraada oo tan xukuumad ahaan anagu aan safaaradaha la kulmayna waa tii kore tii hoose ee sectoralka hadii la sameeyo midna waa inaan diaspora iyo shacabka laftigiisa aan resource mobilization ku qanayno shacab farabado iskuulka agtiisa dayactiran kara jira ama shacab farabado biyaha agtooda hagaajisan kara ma abaabulaa ma u sheegnaa shaqo ma ka dhiganaa oo ma niraahna shaqadan qabsada ma niraahna marka arintaas arin kulligeen ba aynu ku yar liidinay maadaama ahayd inaynu xoog saarno arrimahan imika nabadgelyada laftigeeda shacabka guduhu iyo ganacsatada aad bay u amaanan yihiin lacag ilaa iyo 200 milyan ku dhawaad bay iska soo ururayaan ballanqaadkii waa inay ka dhabeeyaan oo nabad dabagalaa oo taawun agoonta iyo isbitaal ciidan iyo in lagu sameeyo ay noqon doonto laakiin diaspora oo kale lacag badan baa taala yabara marka dadkii qurba joogtaana iyagana inaan hawshan xilligan inta sidan tahay ka qayb dagaalkan si shacab aan u galaalay si shacab aan u galo maadaama la yiri inaan taana qaadano oo ka shaqeyno waa qorshayaasha hadda waliba xilli qorshe la diyaariyay maana gaarin baarinta al-shabaab debdemiskii baa lagu jiraa wadankay soo weerareen magaalooyin bay soo galeen hal difaac in hal daran baa la yiri laakiin wareegii labaad ee aad dagaalkan aad u dheeraado xoog kale ay soo galaan deegaankan sidoo isu difaacaya oo aan arintaas ka qabanayna qorshaheedii hadda bay bilow tahay inahaasaan ku soo koobayaa jawaabihii su'aalihii la soo jeediyay aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh